السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدنايال iyo marwooyin ku soo dhawaada jaamacadda caalamiga ah ee Sahel University gaar ahaan qaybteeda luqadda ah ee loo yaqaan Department of Linguistics course-dani waa diploma in English language waxaana course-dan dhigi doona haddii Ilaahay awoodda leh raali ka noqdo aniga oo ah Professor Abdullahi Maxamed Umar course-dani which diploma in English language waxa ay ku bixi doontaa online ahaan waana course-dii ugu horeysay ee nooceega ah ee Ilaahay awoodda leh anaga marka laga yimaado idii soo kordhiyay time fiican Ilaahay idii siiyay in aad ka faa'iideysataan taasi oo ah great opportunity aad ka faa'iideysan karto haddii Rabbi raali ka noqdo si dhib yar muddo kooban aad ugu baran karto luqadda Englishka ah aanad ka baran karto maxaan ku kuna baran karto wherever you are ama joog xafiiskaaga ama suuqa joog ama gurigaaga joog haddii Ilaahay awoodda leh raali ka noqdo course-dan waxa aan u qaybinay 3 level level oo kala ah level 1 levelka koobaad oo loo yaqaan primary levelka labaad oo ah intermediate levelkii levelka saddexaad oo isna noqon doona haddii Rabbi raali ka noqdo advanced level kasta ama ha ahaado level 1 ama ha ahaado level 2 ama ha ahaado level 3 saddexda level kasta oo kamidi waxa haddii Rabbi raali ka noqdo qaadan doona inta u dhaxaysa 2 ilaa 4 bilood level 1 party oo ah the primary part waxa aan kaga warrabi doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxyaabaha soo socda in level 1 casharada ku qaadan doontaan waxa weeye waa alphabet in a word oo aan gelin doono 2 eray alphabet ku isticmaali doono 2 eray haddii Ilaahay raali ka noqdo alphabetka markaynu ka warramayno dhamaantiin inta badan waa taqaanaa alphabetiska laakiin maadaama waxaan uu yahay waxaan baranaynaa luqad cilmi ahayn luqaddu marka aad baranayso ama wax kasta oo baranaysaa waxa uu u baahan yahay in laga bilaabo seeska waxa laga yaabaa qaarkiin inaad yaraysataan oo istiraadaan weydiis waa sidee English diploma ah baa la idin dhigayaa haddana alphabet waxaan ku arkaysaa maxay tahay alphabetka sababta lagu daro waxay tahay kow waa luqad waxana waana seeskii in laga bilaabana waa muhiim at the same time most of the people iyaga oo garanaya way mispronounce grayaan si qaldan bay ugu dhawaaqaan alphabetiska that's why halkan ugu soo darnay aan haddii Ilaahay raali ka noqdo kugu noqon doono cashirkaaga koobaad ee ugu horeeya level 1ka kadibna waxaan gelin doonaa alphabetiska laftigood ugu isticmaali doonaa erayo 2 eray ugu yar yihiin kadib waxaan ka hadli doonaa haddii Rabbi raali ka noqdo singular and plural demonstrative sentenceski oo aan si deeply u sharxi doono qaabka loo kala isticmaalayo waliba kadib waxaan ka hadli doonaa days of the week and the months of the year waxa kugu xigi doona simple English greetings kadib waxa ku xigi doona short conversations waxa kugu xigi doona singular and plural nouns haddii Ilaahay raali ka noqdo wili waxaan ku sii guda jirnaa qaybtii level 1kii waxyaabahan level 1ka sidoo kale aan kaga hadli doono waxa kamid ah qaabka loo kala isticmaalo there is iyo there are first of all waxaan ku taariifin doonaa ama ka hadli doonaa doonta maxay tahay there is there are maxay tahay qaabkeeba maxaa loo isticmaalaa there is maxaa loo isticmaalaa there are haddii Ilaahay awood leh raali ka noqdo waxa kugu xigi doona some parts of the human body oo aad baran doonto waxa lagu jiraahdo luqad ahaan kadib waxa kugu xigi doona things at school waxyaabaha yaala iskuulka office-ka store-ka dad iyo waliba at school haddii Ilaahay awood leh raali ka noqdo waxa ku xigi doona waxoogaa short chatisa kadib waxa ku xigi doona personal pronounski oo aan baran doono haddii Ilaahay raali ka noqdo waxa kugu xigi doona ka warrami doona articleska gaar ahaan a and an iyo goorta la isticmaalayo halkay ku habboon yihiin sida loo isticmaalayo kadib waxaan deeply u sharxi doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo formal and informal introductions oo ahaan doonta qaybta kuugu dambaysa in level 1 halka waxaan loogu xigi doonaa qaybta labaad ee haddii Ilaahay raali ka noqdo course-keenan oo aan sidan hore u mention gareeyay ama carabka ugu dhuftay ahaan doonta the intermediate part intermediate partigana haddii Rabbigay raali ka noqdo waxa aan kaga warrami doonaa
waxyaabahan soo socda waxaan casharka hore noqon doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo directionist and subdirectionist casharka labaad waxa ahaan doonaa easy prepositions baynu ka hadli doonaa oo waxaa si deeply oo faahfaahsan aan uga warrami doonaa oo baran doontaa haddii ilaahay raali ka noqdo qaabka loo isticmaalo prepositionka at qaabka loo isticmaalo in qaabka loo isticmaalo on qaabka loo isticmaalo with qaabka loo isticmaalo under haddii ilaahay raali ka noqdo kadib waxaa ku xigi doona modal verbska iyo weliba qaabka loo isticmaalo where modal verbs are nothing laakiin ay yihiin can may must should would and could iyadoo aan weliba raacin doono some charts waxaa kugu xigi doona haddii ilaahay raali ka noqdo seasons of the year kadib time changes oo waxaan baran doonaa qaabka verb to be gu isku bedelo marka present yahay qaabka loo isticmaalo qaabka verb to be gu noqdo marka past noqoto marka future laga hadlayo iyo wixii lamid haddii ilaahay raali ka noqdo kadibna waxaad baran doontaa qaabka luqadda Englishka aad qof ugu sheegi karto saacadu inta ay tahay telling the time in English waxaa kugu xigi doona my family oo family memberski ah kadib waxaa kugu xigi doona haddii ilaahay raali ka noqdo opposite and similar words kadib waxaa ku xigi doona WHO questions and other question words iyaan ka hadli doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa kugu xigi doona punctuationkii ama ha ku ahaado full stop joojkii ah ama comedy oo hakadkii ah exclamation markiga oo ah calaamatul cajiib and apostrophe haddii ilaahay raali ka noqdo qaybta ku xigtaa waxay ahaan doontaa sidaan hore u sheegnay level 3gii wali level afwan level 3 maam hadalku ma jiray wali waxay noo soo level 2gii level 2ga sidoo kale waxaan kaga warrami doonaa conjunction oo ah xidhiidhiye oo waxaan ka warrami doonaa conjunctions way badan yihiin qaabka loo isticmaalo and because or but and so kadib waxaa kugu xigi doonaa short charts kadib waxaan ka hadli doonaa describing people qaabka dadka loo sharaxo waa adjectivekii waa sifeeye waxaad baran doontaa qaabka aad u odhan karto hebel waa nin dheer waa nin gaaban waa nin cas waa nin madow waa nin foolxun waa nin qurux badan waa nin buuran waa nin caataa iyo wixii lamid ah waxaa ku xigi doonaa singular and plural nouns oo si completely aan uga hadli doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa ku xigi doonaa countable and uncountable nouns kadib waxaan ka hadli doonaa weather conditions haddii ilaahay raalli ka noqdo weather conditions kadib waxaan ka warrami waxaa kugu xigi doonaa some conversation oo waxoogaa xiwaar ah oo laba qof oo wada sheekaysanaya haddii ilaahay yidhaahdo kadib waxaa ku xigi doonaa fish table and fruities waxaa ku sii xigi doonaa weekly listening waxaa ku sii xigi doonaa job vocabulary waxaa ku xigi doonaa level 3gii oo ku ah advanced levelkii in the advanced level markaynu u gudubno level 3ga oo ah advanced levelkii waxa aan kaga hadli doonaa ama aad ku baran doontaan level 3 waxyaabahan soo socda level 3 waxaan kow ka hadli doonaa oo si deeply aan u sharaxi doonaa present continuous tense oo kow taariifin doono present continuous oo maxaa tahay maxaase lagu isticmaalaa goormaase lagu isticmaalaa kadibna aan ka warrami doono formka ama qaabka loo sameeyo tenniska ama any sentence ah present continuous tense kadibna oo iyada oon weliba raaci doono ama aan eegi doono qaab ahaan marka aan samaynayno inagoo present continuous tense adeegsanayna hadal caadiya oo loo yaqaano affirmative qaabka aynu samaynayno qaabka affirmative-keeni ama hadalkeeni caadiga ahaa aan uga dhigi karno su'aal iyo qaabka looga dhigi karo negative present continuous tense kadibna waxaad baran doontaan haddii ilaahay raali ka noqdo simple present tense-kii oo isna sidaas si lamid aan tacriifin doono kadibna aan sharixi doono qaabka loo sameeyo any sentence of simple present tense iyada oo aan weliba ka sharixi doono aan ka hadli doono qaabka affirmative ahaan hadal caadiya loo sameeyo iyo si present kala adeegsanayo kadib hadalkaaga caadiga looga dhigi karo maxaan ku dhahay su'aal kadibna looga dhigi karo negative haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa kugu xigi doona simple past tense oo isna qaabka mid aan sharixi doono waxaa ku xigi doona past continuous tense oo isna aan sharixi doono si fiican haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa ku xigi doona simple future tense-kii oo isna si faahfaahsan uga hadli doono kadib waxaad baran doontaa haddii ilaahay raali ka noqdo present perfect tense-kii waxaa kugu xigi doona present perfect continuous tense waxaa kugu xigi doona haddii ilaahay raali ka noqdo past perfect tense
past perfect tense markaynu ka warranno kadib waxaan ka hadli doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo si fiican u baran doontaa past perfect continuous tense-kii oon isla si deeply maaha only past perfect continuous tense dhammaan tennisyada mid walba waxaan u dhexgeli doonaa si aad u faahfaahsan si waxaad baranaysaa uu ahaado waxaad aqoon dhaba ka dhaxasho haddii ilaahay awoodda lihi raali ka noqdo kadib waxaa kugu xigi doonaa future continuous tense kadibna waxaa ku xigi doonaa future perfect tense oon isna u sharixi doono sidaa kuwa hore aan sheegnay iyo si kasii wanaagsan haddii ilaahay raali ka noqdo kadibna future perfect tense markaad qaadato waxaa kugu xigi doonaa sida continuous tense-kiisii ah oo ah future perfect continuous intaa wixii ka dambeeya waxaan isku arki doonaa cashirka xiga waxaan idin leeyahay see you in the next class waxaase idinku dardaarayaa in aad dadaashaan rabbina tala saarataan ogsoonaada aan lagu wada tilmaamaynaa oo waxaana cidda wax idin dhigaysay cidda la rabo inay wax baratay waa idinka markaa ku xidhnaada pagekan 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ugu xidhnaada practice gareeya ku dadaala haddii ilaahay raali ka noqdo waxaad fahmi weydaan waxaad noo soo dhigaysaan groupkayga haddii ilaahay raali ka noqdo waa idinku jawaabaynaa waxaad fahmi weydaan waa si fiican yaan idinku sharixi doonaa oo waad ila soo xiriirsaan haddii ilaahay raali ka noqdo wixii talaya tusaale ahna waan soo dhaweynaynaa waxaad noogu soo sheegaysaan isla pagekayga haddii ilaahay raali ka noqdo laakiin waxaad ogsoonaataan cidda la raba inay wax barataay waa idinka yaan la hilmaamin gabayga odayga Soomaalida ahaa lama helo wadaado waxaan idinku hawshoone nafta loo xantaaqa waxaad haybsan leedahay ogsoonow the more you try the more you learn at the same time waxaad maskaxdaada ku haysaa nothing is difficult unless you make it difficult caalamkan wax adag habeeraatay ma jiraan adig oo isku adkeeyo mooyaane marka balantiinu waa dadaal iyo inaad 4 iyo 5 iyo 6 ugu xidhnaataan pagekan haddii ilaahay raali ka noqdo rabbigiina tala saarataan aakhiriya adduunba waad haddii ilaahay raali ka noqdo waad guuleysanaysaan inaan ku arkayna ama ku kulmi doonno cashirka xiga oo ahaan doona cashirkayga koobaad waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu